maxaa la igu xidhayaa u sameeyey wasiiraddeeda baan hambeliyey wasiiraddeeda adeer ayaan hambeliyey imikana waan hambaleene horena anoo xamar joogana waan hambeliyey waan u tegey gurigeeda igu maxsuuda imika hadday tiraay kaalan imikan diyaaradda raacin u tegayaa wasiire Khadiija soo mad garan wama ka soo cibaadeysanaya inta u tag salaadeeda ma cibaadaadeen adna waan ku xidhayaa baad leedahay kulanti haboon daawadayaal idlahaantiinba waxaa hadda barbarkayga fadhiya boqor Axmed Iimaan Warsame oo ka mid ah madax dhaqameedka waaweyn ee Soomaaliland boqor ku soo dhawo marka hore telefishinka Sahan bal maanta adiga telefishinka u yeeray maxaad noo wadaa aad iyo aad baad u mahadsantahay Axmedow adiga iyo Sahan iyo TV-gaaga baad baan uga mahad celinaa waan salaamayaa waxaan doonayaa maanta aan u imid in xagga ka hambaliyeeyo wasiirada ugu qaaliya wasiirad Khadiija Maxamed Diiriye oo imika wasiiradii la magacaabay ku jirta Soomaaliya oo loo magacaabay xuquuqul insaanka wasaaradda xuquuqul insaanka iyo haweenka Soomaaliya iyo doona xagga ka hambaliyeeyo waxaana leeyahay wasiir Khadiija hambaliyan ku leeyahay ilaa xilka lagu magacaabay ku fududeeyo waxa kale oo aan doonayaa inaan isagana hambaliyeeyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo gartay maanta inuu Khadiija Maxamed Diiriye wasiirnimadii ku soo celiyaan Khadiija Maxamed Diiriye taariikhdeeda ama sida dogsoontiinba wasiir ma aha wasiirnimada ku shaqeysay waa wasiirnimada loo magacaabo ugu adeega qaranka magacaabay iyo ummadda ay ka soo jeedaba xasan qabiilnimaba taasna waxa ku cadeynaya wasiiradda wasiir Khadiija guriga ku jirta waa kiro imika 30 sano ugu dambeeyay dhowr jeer baa wasiir loo magacaabay intaasoo dhan xildhibaanay ahayd defoqbeedhisan lahayd marka taas waxaa ku cadeynaya inay qaranka ugu adeegto in ahayn wasiirada ku shaqeysa wasiirnimada ama xildhibaannimada marka wasiir Khadiija waxaan leeyahay khayr Allah ku siiyo sida aad ummadda ugu shaqeysid ugu shaqeeyo ha noqonin sida sheegtay ama ummadba ku taqaano wasiirnimada qof ku shaqeysta qof ugu shaqeeya qaranka iyo ummadda noqo ayaan ku leeyahay Khadiija wasiira madaxweynihii ku magacaabay iyo ra'iisul wasaarihiina waan hambaliyeynaa waxaan leenahay halkii ahayd baad dhigteen wasiir Khadiija beelahay ka soo jeedo anigoo ku hadlay afkoodii oo ah boqorka Soomaaliya Somaliland Ethiopia Djibouti geeska Afrika dadka beelahan ka soo jeedo boqora waan kugu hambaliyeynaa waan ku garab taaganahay wasiir Khadiija waxa jira wasiiro kale oo Somaliland ka soo jeeda oo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu magacaabay maxaa sababay inaad iyaga wasiirada kale hambaliyeyn weydo oo hambaliyeyso Khadiija oo kaliya wasiirka kililka naloo magacaabay ciyaaraha horaan u hambaliyey maalintii la magacaabay baan ku hambaliyey magaalada Jigjiga oo isagana waa wasiirka ayagii waana hambaliyeenaya Somaliland baad ku sugan tahay Somaliland marar badan bay wasiir leedin magacaabay xilal kala duwan leedin magacaabay marka xulina lagu ma aragado Somaliland xilalka ay magacaabeen hambaliyeenaya maanta maxaa kalifay inaad Soomaaliya hambaliyeyso wada Somaliland waddankeygii laakiin maalin dhaweed waxay yiraahdeen mudaharaadyada xafadaha kale ma soo baxaane idinka maxay idinku wacanood ugu soo horbaxdaan marka waxaan halgankii SNM waddanka lagu xoreynayay ayaanu ku habsaanay marka maadaama aanu ku habsaanay dee mehelna wasiir mehelna ma ogtahay guddoomiyayaal ama barisaabo ama komishano guddoomiyaal ah marka taa dee cid ku dhalimaynana halgankii waddanka lagu halgamayey ma ogtahay SNM soo halgamisay Soomaaliya lagu xoreynayay ku habsaanay marka imika xafadaydu waxa waqti walba ay u soo kacday waxay moodaysaa in imika halgan lagu jiro waddanka lagu xoreynayo waxa isleedahay si aad wasiir ku xigeenka u dhaaftaan oo wasiirada eeda u heshaan
aad moogtahay ayay halganka marba waqti walba mudaharaadka u dhigtaa insha allahu tacaala intaanu wasiir buuxa helino intaanu helino xuquuqda ayadana daa'ima mudaharaadka way wada soo ka socdo iyadaan ugu horeyn doontaa way Soomaaliland baad ku sugan tahay Soomaaliland iyo Soomaaliyana waa hore kala huleeleen oo kala tageen oo laba dal kala noqdeen maanta adigoo Hargeysa ku sugan oo Soomaaliland ku sugan inaad hambaliyeyso wasiir Soomaaliya loo magacaabay miyaan arrintumisnimo ahayn marmaha Khadiija Maxamed Diire Soomaaliland uma dhalan iyadu waxay u dhalatay koonfurta waa wasiir koonfurta u dhashay Soomaaliland wasiirada Soomaaliland ku dhashay wasiirada laga dhigay Soomaaliya de kuwa ma hambaliyeenayo mana hambaliyeen doono waxaan ka qabaa mowqifka ka taagan tahay adigu Soomaaliland ka taagan tahay kuwa ka taagan laakiin Khadiija Maxamed Diire Soomaaliland uma dhalan Soomaaliland darna maaha laakiin waxay u dhaatay koonfur waana dadkan u ahay boqorka oo u ahay suldaanka waana garab taaganay Khadiija Maxamed Diire iyo cidii kaleba xitaa wasiirada Puntland loo magacaabay dadkayga yaan garab taaganay oo anigu kuma koobni Soomaaliland aan waxanahay waxaan haystaa aqoonsi adduunyadu aqoonsiyiin inkastoo rag kale oo boqor ay sheegtaan in geeska Afrikaanu nahay boqorka geeska Afrikaaniga aqoonsi baan u haystaa international committee ay siiyay midiga Yurub ay siiyay cid walba way siis Soomaad garan marka aniga dadkaygu waxay joogan koonfur Muqdisho joogan Puntland bay joogan Ethiopia joogan Djibouti bay joogan xagga bay joogan marka waajib ay u tahay qof wal oo xil loo magacaabay oo geeska Afrika jooganba inaan hambaliyeeyo aniga way ugu wajibadeen boqor Axmed Iimaan Warsame wasiirada Soomaaliya baad hambaliyeysaa adigoo ku sugan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ma laga yaabaa in xukuumadda Soomaaliland ay xabsiga ku taxabto maxay u taxabto waxaan sharci waxaan u leeyahay waan hambaliyey ma iska talaamunba ma iska xidhuunba war waxa de mala hadalkaygu meel kulka maray Axmedoowe waxaan ku waranu boqor geeska Afrika nahay sharci baan u haystaa Djibouti baan tagaa Ethiopia baan tagaa Xamar baan tagaa Puntland baan tagaa dadkayga ku nool cid allaaliye cidii dadkayga ka soo joogtay xitaa imka wasiir Puntland hadii la magacaabo beelaaga ka soo jeeda waan hambaliyeenaya Soomaad garan anigu adeer Soomaaliland de kuma koobni dadkaygu meel walba u daaseen deegaan qura oo Soomaaliland ku leeyahay garanaysa oo leeyahay meesha reerka degan sidan meel walba u joogo iyo dadkaygu meel walba u joogaan marka way ugu waajib anigu wasiir Soomaaliland u dhashay oo laga magacaabay xawar man hambaliyeen kaas waa qarandumis kaas waxa weeyaan si sharcigan u dhigayo waa uu shaqo tagay laakiin Khadiija way u dhalatay Soomaaliya Muqdisho u dhalatay ilaa intii uu ka burburku joogana yidii ubadkeedu marna kama bixin waxayna tir waan ku dhimanayaa Xamar aniga ubadkaygu qarankan u shaqeynaya Soomaaliland u shaqeynaya marka iyadu waa koonfur bay u dhalatay waa wasiir koonfur ka dhashay wasiir u dhashay Xamar ku dhashay weeyaan Xamar bayna degan tahay waan hambaliyeenaya marka ay yeedhan waan u tagay oo inta diyaaradu lagama yaabo marka in lagu xidho maxaa la igu xidhayaa sameeyay wasiiradeeda baan hambaliyay wasiiradeeda adeer ayaan hambaliyay imika loo hambaliyay horena waan Xamar joogana waan hambaliyay oo waan u tagay gurigeeda igu macsuuda imika haday tiraay kale imika diyaaradu raacin u tagaya wasiir Khadiija Soomaad garan waa ka soo cibaadeysanaya inta u tag salaadeeda cibaadadeed adna wal ku xidhayaa baad leedahay daawadayaal